fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco ayay maanta isugu soo baxeen taageerayaasha musharaxiinta ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee u ciiday gobolka Togdheer musharaxiinta Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi Heer oo u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale Faysal Yuusuf Jaamac oo u taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer ayaa wacdar ka muujiyay fagaaraha khayriyada musharaxiinta nololahooda ka soo bilaabmay garoonka Seelada ayaa tan iyo intii ay soo gaadhayeen fagaaraha khayriyada magaalada Burco waxay ku dabaaldegayeen gaadiid aad u tiro badan musharax xildhibaan Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi Heer oo ku hadlayay afka labada musharax ayaa taageerayaashooda uga mahadnaqay sida ballaaran ay uga qayb qaateen ololaha doorashooyinka wixid baa lagu diirsadaa wixid baa lagu doogsadaa wixid baa ku dadaalayse wixid weeye doorkani assalaamu calaykum waraxmatullah waxaa ku faraxsanahay ugu horrayn Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi ama Cabdirasaaq Hiiro inaanay maanta Burco isugu horrayn inaanay musharaxnimadu iskiin barin laakiin reer Burco ay Cabdirasaaq garanayaan miyiga magaalada marka labaad waxaan u mahad celinayaa ilaahay fursadda ii siiyay maanta anigoo inankiiniya inaan soo taago baahiyaha jira sida wax uga qaban karo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qaybka og laakiin awooddayada waxaanu ballan qaadaynaa baahida aan xogogaalka u ahay iyo garashada aad igu tuumayseen Cabdirasaaq kuu yahay iyo wuxuu ka shaqayn jiray inaan insha Allah bedeli doono xalayto idinkoo shucuur laba dabaaldegayseen maydaan helin boosaska xaq u lahaydeen inaa ku dabaaldegtaan maanta waa cadceedda idin haysa iyo jiirka iyo barxad la'aanta waad ogtihiin biyaheenu siday u yihiin baad ogtihiin nadaafadeenu siday tahay baad ogtihiin waxbarashadeen iyo iskuulka siduu qashinka u noqday baad ogtihiin waxaasoo dhan dawlad hoose waxa loogu talagalay waa dawlad hoose waa kaabada u hooseysa dadka laga dareensiiyo nolosha insha Allah ta'ala waxaan ballan qaadaynaa aniga iyo xildhibaanada soo baxa inaad dareentaan inaad dawlad leediin maanta ma dareensanid inaad dawlad leediin laakiin inaad dareentaan inaad dawlad leediin baan insha Allah ta'ala ballan qaadaynaa waxa ay noogu ducaysaan in ilaahay 13 wanaagsan oo aayaduhu qabtaan oo dawladnimada Indonesia ay soo baxaan aad baan ugu faraxsanahay in dhalinyaro fiican oo golaha deegaanka iyo bulshadaba wax ka bedeli kara ay soo baxayaan astaantaydu waa 3 wan isu sheegi mayno Cabdirasaaq waa isgaranaysaan anigu isugu fasiri maayo aad baa u mahadsantiin waa 3 wan iyo gaashaanka waa gaashaanka waxaan idinku gabagabaynayaa 312 suuradood baa ku dhamaada quraanka waa suurada la yiraahdo Isra iyo suurada la yiraahdo suuratu Yuusuf labaduba waxay ka marakacayaan gobonnimo iyo nolol la daafuray iyo cadaalad saddexdaa wan quraanka lagu sheegay gaashaankana nabiyadii Ilaahay soo diray inaan dagaalamin oo aan gobonnimo soo hayno kuma jiro labadeeda astaamood ba Ilaahay quraanka uu ku sheegay marka waxaan aaminsanahay Cabdirasaaq anoo awoodayda ku kalsoon anigu oran maayo maayar baan noqonaya cirkaan idin qaadaya war awoodayda ku kalsoonay waan isgaranaynaa insha Allah ta'ala maalinta 13 May iyo Cabdirasaaq Hiiro Kamal Xaj Cabdiraxmaan wararka telefishinka Sahan magaalada Burco